David Luiz ayaa noqday laacibkii ugu dambeeyay ee Chelsea ee qirtay in tagista Antonio Conte ay sabab u ahayd inuu sii joogo gagada Stamford Bridge. Xidigan ay dhalashada wadaagaan ee Willian ayaa isagu markii hore qiray inuu ka tagi lahaa haddii Antonio Conte uu baaqi ku sii ahaan lahaa kooxda Chelsea. Daaficii hore ee kooxaha Benfica iyo PSG ayaa qiray in haddii aan la eri lahayn Antonio Conte ay mid liidata ahaan lahayd rajadiisa sii joogista ee kooxda Chelsea. Yeelkeeda David Luiz ayaa iminka ku faraxsan inuu baaqi ku sii ahaado kooxda reer London isla markaana uu ka soo muuqdo haddii tababaruha uu sii joogi lahaa. Dabcan qof kasta uu og yahay in laga yaabo inaan u dhaqaaqi lahaa kooxo kale. Luiz ayaa sida u sheegay Sky Sports, iminka halkan ayaa jooga, aad ayaan ugu faraxsanahay. Chelsea oo 3 gool ku soo adkaatay labadii kulan ee ugu horeeyay Premier League ee xilli ciyaareedka cusub ayaa iminka la ciyaarisay kooxda Newcastle waxaana kaga badisay 2-1.